السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يا ساعة 6 ساعات الصبح 4 ساعات طرق الإمامة 5 ساعات طرق الإمامة هتصورها إذا أنت وعارفها الليسكا أنت سيحدين ليكيرو أنت فرسنا مقعد هذا الصور ليكيرو بريتونا بالله أو هيدا وعارفها أنت أسكب بعد الشركة واحرين هدول هنا. فريستا حلوان الله فريستا مدنيال استجيسنا واحد فريس مدنيال فورمك وحو كفر من بغالي كنتم حدنا وحا فريسا بغالي للاتني أثر جبلان برلمان كيدي سوق الحدث
magacaygu waa xildhibaan Axmed Aabi Aadan waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka meel kale markhaati loogu dooni maayo saxaafadda wixii meeshan taaga ka dhacay markhaati u ahay 102 xildhibaan in la yidhi way fadhidaa wuuna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ninka la yidhaha Jiilaani Aykar uu yidhi waxaa codaysay 142 horta meelay kaga taalo inaanu u codayno iyo inaanu mooshin ka keeno dawlad goboleedyada ma jirto waxa weeye arrintani waa dimidii iyo burburitaankii baarlamaanka waxaan sidaa u leeyahay waxaa loo yaala oo khamiistii hadda guddiga joogtada ah ee baarlamaanka aan isku ogeyn hindise sharciyeedyo khuseeye hiigsiga 2016 oo iyo guddiyadoodii waxaa loo yaal guddigii doorashooyinka waxaa iyo guddigii xuduudaha iyo federaaleynta golaha garsoorka waxaa loo yaalay hindise sharciyeedadii xuquuqul insaanka iyo argagixisada ay ka mid ahaayeen intaas oo loo taale waxaad ogtihiin inaan weli 10 hindise sharciyeed annaan 3 sano baas garayn arrintaa waxaa xumaanteeda iskale guddoonka baarlamaanka oo baarlamaanka mar walba ku haga wax aan loo baahnayn oo aan macno lahayn sida tan maanta oo kale salaamu calaykum wa mahadsantihiin baarlamaanka waa xidhaya kooramkii ma dhamma markii saddexaadna uu sheegay 120 xildhibaan inay fadhido markii ugu dambeysana uu yiri 132 codaysay intaa wixii ka soo baxayna markaatibaad ka wadaay